maamulka degmada Waadaamo-goo ay wehelinayaan siyaasiyiin iyo xubno kamid ah qurbajooga deegaankaasi ayaa waxay soo kormeereen wadada loo yaqaan jidka nabada ee isku xidhaya degmooyinka Waadaamo-goo Qorilugud-Buuhoodle kasoo haatan dhismihiisu si xawli ah uga socdo inta u dhaxaysa magaalooyinka Qorilugud iyo Waadaamo-goo waxaana maamulka degmadaasi Waadaamo-goo siyaasiyiinta iyo qurbajooga deegaanka ka soo jeeday wadadaasi booqday ay ka xog warameen habsami socodka u socoto wadadaasi iyagoo sidoo kalena dadka ku hawlan dhismaha wadadaasi ugu baaqay inay halkaasi ka sii wadaan dadaalka xooggan ee ugu jiraan si wadadaasi u noqon lahayd mid lagu guuleysto dhismaheeda sida odayaasha horeba ay sheegeen wadadan iyo wadadii nabada weeyaan oo wadadii isku xidhisay Waadaamo-goo iyo Buuhoodle wadadan dheer baa u guntiday qurbajoogu ay number 1 ka yihiin waa taa maanta gudahoodii ay beereen aad arkaysaan gaadiidkii oo shaqaynaya carakaawadi oo la goonayo sarfeyga waa socda injineeradu waa joogaan wadadu de si wanaagsan bay u socotaa wadi ka arkaya indhiina ku arkaya waxaanu kaloo dadka qurbajooga ah hawshan miisaankeedu ku dhacayay ama yarna ugu baaqeena meel kasta ay joogaan inay wadadan sidii markii hore ay u bilaabeen ay qayb tii ay ku lahaayeen ka qaataan waxa xukuumadda ka soo gaaray kaamkan maanta shaqada halkan ka soconaysa wadada waxa xukuumadda ka soo gaaray oo aan ugu mahad celinaynaa 100 foosto oo naafta ah oo taangiga aad arkaysan ku jira 2 injineer oo wadada ku qoran inan makaaniga oo isaguna magaranaysa markaa inta wasiirka wadooyinka hadaa faraysa laakiin maanta hadii la kuuleeyo xooga ay ku socoto oo u dhacdiciyo inta dhagaxa si baa loo dhamayn karayaa muddo aan fogeyn haddii laakiin ay kala qabowdo imika oo biyo dhex maraan oo roob dambe yimaado waxay dib waa tacabtaabay marka dadka wadadana fusayso shacab iyo dawladda qurbajoog iyo qulquljoogba waxa aan ku guubaabinaynaa inay u soo guntadaan sidii wadadan wax looga qaban lahaa ee loo dhamaystiray already waa la bilaabay wayna socotaa sarfeygi wuu socdaa carakaawadi waa diyaar gaadiidkeedii waa diyaar waxa ay u baahan tahay imika in si wada jira loo soo wada guntado ninkii islaha waxba ma bilaabmin ninkii islaha laga geeyin maayo iyo ninkii islaha waa adag tahay waxaad ogaataa turba inaan kala bar ku dhownahay wadada shaqadeeda ay ku dhowdahay dadkii ay wadadaas qusaysay waxaan la socodsiinaynaa shaqadii inay socoto oo cagafta ku jirto waxaan lagu soo booqday xubno ka tirsan raggii wadada muxsiinta ka shaqayn jiray oo qurbajoog iyo qoojoog bare nin kastaana kulli wuxuu dhigsan ku soo arkay uu ka hadli doonaa marka waxaan ku wacyigelinayaa dadweynaha ay wadada khusayso qurbajoog iyo qoojoog inay ka soo qayb qaataan jaamac boodacde warbaahinta qaranka Soomaaliland aynaba